maamulka magaalada Wajaale ayaa hambalyeeyay musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga Kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga Kulmiye Cabdiraxmaan Saylici mas'uuliyiintani oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta dawladda hoose ee magaalada Wajaale ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland khudbadii uu ka jeediyay maanta golaha dhexe xisbiga Kulmiye iyo guuleysashada uu ku guuleystay Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo xaq u leh inuu Ilaahay ku guuleeyo jagada uu maanta ku guuleystay ee musharaxa madaxweynaha xisbiga Kulmiye waxa kaloo isagana halkan hambalyo uga diranaa hambalyo uga diraya madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland musharaxa madaxweynaha ku-xigeenka xisbiga Kulmiye Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo isaguna ku guuleystay guusha maanta u soo hoyatay labadooda iyo dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland ee sharafta badan aad iyo aad baan anaguna ugu faraxsanahay dadweynaha reer Wajaale iyo gobolka Gabiley haddaan nahay waxaanu imika suuqaanu dhex magri kari weynay imanka tahniyada iyo dadka isjeedaya haddii aanu odhan lahayn halkan baanu xaflad ku qabanaynaana waxaanu ka baqnay in albaabada laga rujisto saa darteed farxaddaas baanu u gudbinaynaa mujaahidka insha allah waxaanu ku rajo weynaa allahayna gaarsiiyo maalintii codbixinta noqoto inaan cidina sidaan loogula tartamin nin waliba hawada uga baxay dabayshiisii ay ladegtay hambalyo u diraya golaha dhexe oo maanta si habsami leh hawsha ay ugu doorteen musharaxa madaxweynaha Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici aad iyo aad baan u hambalyeynaa haddaanu nahay maamulkii degmada Wajaale waxaan hambalyo maanta dadka uga diraynaa Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo maanta si rasmi ah loogu doortay isaga iyo ku-xigeenkiisii madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saylici oo maanta labadoodaba si rasmi ah loogu doortay inay noqdaan musharaxa jagada madaxweynaha iyo musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka waxaan leenahay hambalyo Mukhtaar Nuux Ibraahim Home Cable TV magaalada Wajaale.